maanta waxaynu ka hadlaynaa mid ka mid ah dhibaatooyinka hor yaala dhalinyaro badan oo caalamka ku nool. dhibaatadani waxa ay saamaysay nolosha dhalinyaro badan iyo weliba lamaanayaal si dhaba isu jecel. haddaba dhibaatada aynu maanta xalinaynaa isla markaana aynu ka hadlaynaa waa biyo-baxa degdega ah ama waxa loo yaqaan caafimaad ahaan premature ejaculation loona soo gaabiyo BE. sidaa darteed waa xaalad uu raggu ku biyo baxo muddo 2 daqiiqo gudahooda. ugu horeyn ragga badankoodu waxa ay xaaladan la kulmaan hal mar noloshooda. waxay kaloo daraasad la sameeyay sheegtay isku celcelis ahaan muddada ay raggu ku biyo baxaan marka xaaladan lagu jiro inay tahay 5 ilaa 6 daqiiqadood. waxaa kaloo jira qeexid kale oo odhanaysa hadduu ninku biyo baxo iyadoo weli xaaskiisu aysan dhammaysan inuu qabo xaaladda loo yaqaano BE ama biyo-baxa degdega. sidaas darteedna hawsha galmada waxa ay u baahan tahay inuu jiro rabitaan, kacsi iyo weliba biyo-bax. haddii haddaba saddexdaa mid la waayo waxaa jira howlgab. haddaba haddii ay arrintu sidaa tahay maxaa keena biyo-baxa degdega ah? ugu horeyn biyo-baxa degdega ah waxaa loo qaybiyaa 2 marxaladood oo kala ah wejiga soo saarista biyaha oo loo yaqaano emission oo ah ilaa ay biyuhu ka soo gaadhaan ibta, iyo weliba wejiga gamista biyaha oo loo yaqaano expulsion oo ah wixii ka dambeeya xaaladda aynu soo sheegnay. sidaas darteedna biyo-baxa degdega ah hadduu qofku isku arko isagoo markii hore fiicnaa waxaa loo yaqaanaa secondary BE, laakiin hadduu qabay inta uu ka qaangaadhay waxaa loo yaqaanaa primary BE. waxayna ku kala duwanaanayaan labada marxaladood daaweynta. haddaba waxaa la aaminsan yahay caafimaad ahaan in sababta keenta BE-da ay yihiin badanaa dhibaatooyin nafsaaniya oo qofka soo waajaha oo ay ka mid tahay niyad jabka, walwalka, cabsida iyo waxyaabo kale. waxaa kale oo keeni kara dhibaato maskaxeed, isbeddelka hormoonada iyo dhibaatooyinka prostate-ka iyo welibana cudurro dhaxal ah iyo daawooyinka qaar. haddaba si loo ogaado waxa keenay dhibaatadan waxaa loo baahan yahay in qofka laga qaado warbixin buuxda oo taabanaysa qaybaha noloshiisa. sidaa awgeed waxaa habboon inaad u tagto dhakhtar. sidee ayaa loo daaweeyaa biyo-baxa degdega? ugu horeyn daaweynta waxaa loo kala qaadaa 3 nooc oo kala ah in la daaweeyo haddii ay jiraan cudurro kale oo keeni kara xaaladdan. tusaale ahaan heerka cunsurka magnesiumka oo ku yaraado qofka. 2 tababar nafsaaniya. tababarkan waxaa lagu dheereeyaa muddada biyo-baxa iyada oo la isku dayo in la joojiyo dibna loo bilaabo dhowr jeer galmada. ama tababar lagu magacaabo Kegel exercise oo lagu xoojiyo murqaha miskaha si qofku awood ugu yeesho inuu koontaroolo murqahaas. 3 daawooyinka la qaato waxaa ka mid ah daawooyinka dheereeya muddada biyo-baxa oo loo yaqaano SSRIs, waana daawo lid ku ah diiqadda iyo walwalka. waxaa kaloo jira boomaatooyin la marsado kuwaasoo keena in dareenka uu yaraado sidaasna ay ku dheeraato muddada galmada. geesta kalena waxaa dhici karta inaad aragtid ama aad maqashid daawooyin iyo waxyaabo kale oo tiro badan oo la xayeysiinayo oo la leeyahay waxaa lagu daaweeyaa xaaladan iyo wixii la mid ah. adiga oon la tashan dhakhtar aqoon u leh xaaladaada ha isticmaalin daawooyinka iyo waxyaabaha la xayeysiinayo maxaa yeelay waxa ay keeni kara dhibaatooyin kale oo hor leh.